السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان صاحبة الصوماليات ملك السؤال جوكتان يسك الصوت ضاولسان حلو ونكسن waxaa goor dhaweyd fashil ku soo dhamaaday shirkii u dhaxeeyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madasha samata bixinta Soomaaliya. dabcan kulankani inuu fashil ku soo dhamaanayo qofka aqli leh uu si saadaalin karay nin baa laga sheegay alla bariga aan ka dhirgayo alla bariyada waan ka aqaana shalay xasan markuu soo qaatay warqadii isdiiwaan gelinta ayaa cid kasta fahamtay xasan meesha uu u socdo iyo in uu maaweelinayo nimanka siyaasiyiinta laakiin dadka active-ka ah ee wax odorasa mar hore ayay sii ogaayeen kulamada iyo shirarka iyo waxyaabahan muxuu ahayd xasan uu wado in ay maaweelo ka tahay horeyna waan u sheegnay waxa weeye qodobka laga doodayay oo guddiga loo saaray ee lagu heshiin waayay wuxuu ahaa cutubka afraad ee dastuurka kaas oo dhammaan lagu cadeeyay yacni qaabka doorashooyinka soo socdo xasan uu ka rabo cutubkaas nimanka samata bixinta la baxay waxay doonayeen in gebigiiba laga takhaluso oo meesha laga saaro qaar kale jira oo waxa ay doonayaan xataa iyagu aan garanayn waan soo laaban doonaa xasan ergadii ka socotayna waxay rabeen cutubka in inta la furo la dhex galo qodobadaas laga gorgortamo oo la yidhaa kan waan ogolnahay inaan tirno laakiin kan ha noo haro adigu meeshaas la ashaafaalateeyay rabeen nimanka ay daacadda ka tahay mucaaradnimada oo xasan sida rasmiga uga soo horjeeda ama doonaya kursigiisa inay u tartamaan waxaa weeye cutubka oo dhan in la bedelo ayay rabeen nimanka samata bixinta xasan wuu dhex galay oo waxaa jira qayb dana iyaga u gaara leh personal interest u gaara qaar leh oo qaar ay lacaga doonayaan oo qaar ay xelal doonayaan nimankaas ayuuna waayaha kan ku dhex jiray uu dhex marayay uu doonayay inuu ka dhaadhiciyo in cutubka inta la furo waxyaabaha qaar laga bixiyo inta kalena lasoo reebo taasna ay iyagu ka dhaadhiciyaan nimanka doonaya si toos inay u tartamaan yacni labadan garab oo hadda isla socota laakiin kala fikirka ah qaybta isaga u jilicsan uu rabay inay kuwan kale pressure saaran oo waxaas muxuu ahayd meesha laga saaro laakiin waxa weeye markii dambe waa la isgartay oo xaliluriyada haddaydan doonin ninkaan meesha inuu baneeyo ama muxuu ahayd fursad tartan uu nasiyo dee toos ugu biiro isaga intaa u tagtaan muxuu ahayd xilal weydiista laakiin adinkoo magacii madasha wata xasan waxa aad la wadaan annagu ma aqbalay ma hebelinayno laakiin dabcan waad iska sii qiyaasi kartaan ragga aadka u jilicsan oo qaarna doonayo inay xoogaa dhowr milyan odag u tuuro qaarna ay doonayaan inuu kursiyo waaweyn siiyo sida ra'iisul wasaare oo kale ugu dambayn maanta la isu tagay baashura waxay ku soo dhamaatay nagu kala kaxeeya haddaba xalku muxuu yahay maxaa soo socda maxaa la rabaa inay yeelaan nimanka mucaaradku xasanse daaha gadaashiisa maxaa ugu sii jira oo uu ka fikiraya horta nimankii mucaaradka mar haddii ay u soo caddaatay ama ay xasan soo kala dhammaysteen oy soo kala tageen waxa u bannaan waxay tahay laga bilaabo maanta muddada 8 bilood ee xasan u dhiman horta inaan xabad lagu rido laakiin ay bilaabaan abaabul maantaba abaabul ay bilaabaan oo bulshada shirar loo qabto oo la dhiiri geliyo oo muxuu ahay loo diyaar garoobo tallaabadii la qaadi lahaa 15 May 2026 wixii ka dambeeya xasan sheekh maxamuud waxa weeye taageero shacab ma haysto shacab Soomaaliyeed iska daayay kii Muqdisho mid uu barakiciyay iyo mid uu gaajeysiiyay iyo ka dhig maanta waxaa bannaan fursad aan bannaanin shalay markuu joogo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo taas oo ah yacni shacbiyad maanta waxaa mucaaradku heli karaa shacbiyad dad shacaba ee soo baxa ee magaalada kala xira ee fagaarihii taxriir ee masar ka dhiga magaalada muqdisho ayay mucaaradku heli karaan waase haddii aysan beer darayn oy gartaan fursadoodu meesha ay jirto xasan maxamed dadka shacabka Soomaaliyeed ah ee reer muqdisho ee dhulalkoodii uu boobay kuwa kalena uu hadda u midiya sahanayo kaliya ayaa ku filan inay ka soo horjeestaan haddii la gaaro 15 May ay mudaharaadaan oo magaalada la kala xiro oo la yiraahdo xasanow na dhaaf
shalay xasanow maxamedow soo baxay idoo qori la wato sow lama lahayn xasanow soo baxo mudaharaadaha xasan lagu ridi karaa 1 milyan oo qof baad heli kartaan laakiin waa abaabulkeeda maanta inaad bilowdaan xasan shacab ma haysto waa nin qaawan waayahay xasan muxuu ku fikirayaa marka xasan horta waxa uu wadaa waxa weeye ulacalku dayaal baa la yiraahdaa bal tanna ku eeg maxaa dhici kara haddaad saan samayso waxa weeye xasan horta marka hore been baa loo sheegay isagoo nin weyn oo 70 jir ah ayaa waxaa lagu yidhi nin hawiyaha tahay adigu farmaajo matiid meesha waa joogi kartaa horta taas bal inuu ogaado wuu rabaa oo 15 May markii la gaaro kadib waxa dhacaya inuu arko xasan uu doonaya ma waxaa suurtagal ah in laga leexdo oo aan lagu mudaharaadin oo qori loo soo qaadan oo uu farmaajo ka duwanaado mase suurtagal maahe waa lagu soo bixi doonaa waxa weeye waa qurba ciwaan shafka laga xiga ayuu joogaa 15 May waxa dhacaya xasan inuu ogaado raba sababtoo been badan baa lagu dalday xasan maxaa u qorshaysan magaalada haday soo dhaqaaqdo 15 May loo kala adeeyay xasan waxa u qorshaysan 1 milyan ay idin sheega markaad soo saartaan inuu yiraahdo arooy raali ahaana xabadaydu ku ridi ma dadkaygiyaa tihiin iska naqda waxa waaye wixii aan la rabnay oo wadnay oo quruxsanay waa la diiday doorashadan yaan ku naqaynaa taani aan heshiiska ku ahaynay teennadeen iska aadinaa kala tagu shacabka dhigi doona laakiin halkaas faa'iido u jirta maxay waxa weeye timekii wuu cunay already oo waxa weeye waxba isagoon qabana halkaas la isla gaaray Soomaa maalintaas wuxuu doonayaa inuu yiraahdo maamul goboleedyadii baan ka bilaabayaa jawharay doorasho gal 6 bilood jiido galmudug ee doorasho gal 6 bilood kala jiido koonfur galbeed 6 kala jiido saddexdaas uu ku qaato 18 bilood kadibna uu yiraa hadda ayaa qabanaya doorashadii federaalka iyadoo 6 bilood kala uu jiido waxaan oo idilba waxa uu sameeyay waxay ahayd 2 sano oo extension ah laakiin afka uu ka sheegi karin maadaama shalay uu qori u soo qaatay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo baarlamaanka ku siiyay extension xasan marka inuu baarlamaanka geeyo wuxuu ahayd mid kulus ma rabo laakiin nidaamkaas quruxda badan ayuu diyaarsaday waxay u tahay plan B hadiise talaftirkeeda aydan ku khasbin oo aydan u diyaar garoobin 15 May kadib wixii aad samayn lahaydeen xasan meesha iska fadhiyana uu rabo inuu iska joogo oo waxa ka dhaaracsan waxa weeye shalad doqonnimo ku baxday 2017 kursiga inaad ka digta maahay waxyaaba loo sheegay ka mid ah qofka madaxda aan kursiga markuu ku fadhiyo waxa weeye sakratul khamri wax la yiraahdo oo kale ayuu kursigu leeyahay waxa la yiraahdaa yani waxa la yiraahdaa khamratul kursi ama sakratul kursi waxa weeye sakrad waxa jirta kursigu leeyahay qofku dhigaba ma leh goor dambe oo xeer iyo fandhaal kala dhaceen baa indhuhu bash u dhahaan markuu sidoo raxal goormay dhaceen oo inta umada goormay soo horjeesatay warin kaartani maxay tahay waxa weeye marka wax badan baa lagu gurayaa waxa la yiraahdaa hawiyaha tahay daaradku soo duulayo meel ka imaanaya ma jiro kuwan meeshan joogaa waad kala dilaysaa qaar baad laarushaysaa saarad samaynaysaa waxa weeye magaalada shacabku dagaal ma rabo buuq ma rabo waxa loo akhriyaa waxa weeye marka horta xasan sida ii muuqata labadiisa sano extensionkeedu way u suurtagelaysaa laakiin iyada laftirkeeda maanta xal ku jira inaad ku khasabtaan haddaydan ku khasbin ninkaasi nin doqona oo aan caqli lahayn dadka ugu liita oo iyaguna doqomo ahna ay la taliyayaan u yihiin waay ugu dambayn hadda mandate maadaama haysto 8 bilood u harsantahay anigu marna ma qabo waana ka soo horjeedaa xasan hal bil u harsantahay xabad in lagu rido sababtoo ah de waxa weeye man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha waxa weeye sunnahun qofki jideeya dambigeedu leeyahay iyo isla sunnadaas cid uga dayata dambigeeda ajirkuna waa lambe waxa weeye maanta qoy qaataan ninkaas Soomaaliya dadka 8 bilood dhimantaa bash xabad lagu siiyo kan xabadaas oo abaabulayo bariya dad waxay noqoto adna waa lagu ridayaa marka hadda ma qaba anigu in maxuu ahayd xabad lagu rido laakiin waxaan qabaa abaabulkii bulshada in dib la bilaabo dadka la diyaariyo maanta waxa la heli karaa 1 milyan oo qof oo xasan barakiciyay ama uu doonayo hadda inuu barakiciyo dadka uu ka barakiciyay guryahoodii
diyaar bay u yihiin maanta xasan inay kasoo horjeestaan mudaharaadaan kuwa hadda uu tiriseena waxa weeye waa la mid bulshadaas inaad abaabushaan oo dhex gashaan oo loo diyaar garoobo 15 May markii la gaaro in magaalada 1 milyan oo qof ugu yaraan la soo saaro laamiyada la xiro shacabkana cunto iyo cabitaan loo diyaariyaa loo baahan yahay taas hadda ka howlgala xasan xabad lagu rido uma baahna intaasaa ku filan magaaladan baan kala xiriirnaa shacabka la soo bixinayaa halkaasaan leenahay ilaa uu wax ka bedelo hawsha jooga waxa weeye 3 maalmood kaliya wallahi buu soo adkaysan karin marka waxa weeye insha Allah taala umada Soomaaliyeed khayr baan u rajeynayaa haddii cidaas aan la hadlayo waa reer Muqdisho Soomaalidii kalena iyadoo dadaalkeeda iyo howlaheedii waxa weeye waa u gaar waa in cid walba muxuu ahayti ay ku fikirto sidii dalka loo badbaadin lahaa hada wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh